xaaladda guud ee magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo ayaa maanta mid degan iyadoo lagu arkay sharaaciyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada ciidamada booliska iyo ciidamada militariga oo isgalabsanaya kuwaas oo gaafureegaya sharaaciyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada kuwaas oo ay saaran yihiin codbaahiyaal isla markaana dadka u sheegayeen wixii ka dambeeyay 6 maqribnimo ay tahay magaaladu bandow kadib markii habeennimadii xalay ahaa lagu dilay bartamaha magaalada Cerigabo taliyihii ciidamada booliska ee degmada Fuquful iyo rag baysan ku dileen waxaa inta kadib helada taliyadu ay weerar ku qaadeen meel maqaaxi oo lagu caweeyo habeennimadii halkaas oo dhaawac ugu geysteen 2 rayda waxaana inta kadib loola cararay dhinaca isbitaalka guud ee magaalada Cerigabo iyadoo qaybaha kala duwan ay warbaahintan warbixin ka siiyay waxa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Axmed Jaamac Caray ayaa sheegay in 2 ruux loo keenay isla markaana labadan dhaawacmay oo mid kamid ah xaaladiisu ay aad u halistahay kii kalena uu geeriyooday dhaawacii ka soo gaadhay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabduhur oo warramay qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa ugu horreynba sheegay inuu tacsi u diray yaradii qaraabadii uu ka geeriyooday taliyihii qaybta booliska ee degmada Fuquful iyo Shiina Yaasin Xinfiniin waxaana uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sanaag uu sheegay in ciidamada booliska iyo ciidamada militariga oo iskaashan buursanaya ay si weyn u ilaalinayaan xaaladda guud ee nabadgelyada isla markaana loo baahan yahay guud ahaanba shacbi weynaha ku dhaqan gobolka Sanaag inay ilaashadaan nabadgelyadooda saaka gudida nabadgelyadu way soo yimaadeen waxaanay ka tashadeen xaaladda magaalada ay ku sugan tahay oo ah xaalad kacsan oo colaadeed oo beelihii ay wax kala gaareen ay muxuu ahaa ka muuqata iyo hub intaba sidii markaa hawshaas wax looga qaban lahaa ayaa gudida nabadgelyadu falanqeeyeen muxuu ahaa maamulka gobolka madaxdu ay muxuu ahaa kaashadaan waxgaradka iyo muxuu ahaa iyo waayeelka degmada Cerigabo sidii ay muxuu ahaa ay nabadda uga qayb qaadan lahaayeen ay ciidamada nabadda ku jira ay uga qayb qaadan lahaayeen beelahana ay muxuu ahaa ay suga muxuu ahaa u tagi lahaayeen oo ay muxuu ahaa ula hadli lahaayeen inay nabadda dhowraan ay go'aan ku gaareen in sugidda nabadgelyada magaalada loo xil saaro ciidanka qaranka iyagoo kaashanaya ciidanka booliska la sameeyana baro ama aagag ay muxuu ahaa fariisimo ka dhigtaan oo muxuu ahaa ay magaalada ka ilaaliyaan muxuu ahaa si socodkeeda iyo muxuu ahaa iyo wixii wax dib wada falkan ayaa bulshaweynta ku dhaqan caasimada gobolka Sanaag ee Cerigabo ay la xidhiidhinayaan dil ka dhacay 20kii bishii 8aad magaalada Cerigabo kaasi oo lagu dilay Allah u naxariistay taliyihii saldhigga booliska ee Daalo ee magaalada Cerigabo Jaamac Garmaqaate waxaana xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo dirtay raxan wasiir warkaciyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Daahir oo socdaalkiisa ku weelinaya wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xildhibaano ay ka mid yihiin xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle iyo xildhibaan Saciid iyo wufuud iyaguna ka soo kicitimay dhinaca iyo gobolka Sool oo ahaa madax dhaqameedyo kala duwan waxaana ay arintaasi ay noqonaysaa mid ay ku guul dareysteen waxaana mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo degmaduba ay dadaal xoogan u galeen sidii xaaladda guud ee nabadgelyada loo adkeyn lahaa taasi oo maanta u muuqato in ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo booliskuba ay gaafureegayaan sharaaciyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Cabdi Naasir Khalid Saciid telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Cerigabo